sawirkan aad baad u garanaysaan gabadhan waa genyada madow baryahan oo dhan wixii aan ka qaylinayay oo aad lahaydeen warniyo topic kala samayso war topican iska daa carabta war waxaan waxa laga yaabaa dadka saas la inaysan weli arag dhibaatada carabta ay leeyihiin ani laakiin waxaan la yaabaa gabadhan la yiraahdo magaceeda genyada genyada arrinkeeda waan ka hadli doonaa iyo qaladka genyadu gashay sidaas oo kale wax yarna waan ku baraarujinayaa intaan shidin videoga intaan shidin waa dhaweeyto waxaan ogeyn in dadka Soomaaliyeed laga gadayay Morocco inay niman badan oo caan Morocco aadeen ay dhaheen gabdha raqiisaha Morocco jooga waa laga soo guursanayaa waa kan in Morocco lagu waalay wada weydeen Soomaa haddaba sababta ka dambeysay in dadka Soomaaliyeed Morocco laga dhaadhiciyo maxay aan idin sheego arrinkaas waa arrin laga soo shaqeeyay waa arrin Soomaali badan lagu gaaday waa arrin macnaha ugu weyn oo ahaa dadka Moroccanka inaan aamino oo ay wadankeeni tagaan oo qof Morocco hadii wadankii lagu arko la yiraahdo ma Morocco ka yimaado meesha Soomaalida gabdhaha ay ka doonaysay war soo dhaw seedigana tahay soo dhaw oo qof Moroccan hadii la arkaan dhibaato loo arkin Moroccan badan xagee u socdaan taqaana waxay u socdaan buurleyda Golis ama Almiskaad meesha hadda dadka dagaalamayo dadka ugu tirada badan waa Moroccan ma rumaysan taas dadka ugu badan halka ka dagaalamay Daacishta lagu sheegay waa Moroccan waxa dhan marka Morocco looga dhigay meel wanaagsan ama laga helo dumar fiican laga helo waxay ahayd hadii qof Moroccan wadanka lagu arko si aan loo colaadin oo la isu weydiin su'aal maxay ka soo dooneen meeshan soo marka dadka Soomaaliyeed waxa laga dhaadhicinayay Moroccanka in wax naga dhaxayaan oo qoysas badan ku leenahay oo hadii aan aragno aan la yaabin hadda ma fahanto marka hadii aan aragno aan isweydiin su'aal aan war Morocco meeshan ma doonto ya Morocco meeshan ma joogto maxay ka soo doonto sidaan loo dhihin hadda ma fahanto soo marka horta Morocco wana lagu gaado waxa hadda la dagaalamayna Morocco waa daan Soomaali nahay balse gabadhan hadaan u soo noqono horta aan shidna videoga inta aanan wax xashaasha ka bixin iyo sheeka aan videoga shidna isla daawan I'm putting you on YouTube. This is Kareem. He was just fighting with me right now, making me cry in the middle of the street. Good morning. Like, what the hell are you trying to do? Like, this is Kareem. Take her to. In my entire life, the worst. This is Kareem. Yes. Okay, let me get off 1 second. 1 second. I'm putting your YouTube. I'm putting your YouTube. This is Kareem. Sheikh Shawi. هو يا ماشي هو ما اعرفش يعني ده كريم يا aad iyo aad walaashan genyada madow sida runta horta waa la dilay ninkaas gacan buu la tagay uu dharbaaxiyay uu dilay sababtu maxay tahay marka sababtu waxay tahay dadka carabta guud ahaan ma arki karaan qof madow ah Soomaalina ma arki karaan hadda gabadhan waxay ku socotaa inay tahay Soomaali saasta inay American tahay laakiin dadka carabta markay maqlaan waxaas way xanaaqayaan أنا واحد بدنا كشكي وحير ودتك عربتها وأنا نعبين وركن كوي أجوحهما دتك أجوحنا عربتها وصدق ذا ودن دتك هذا وموروكو وألجيريا وماركتي يا صدق حسودان ويصدق لما ودنا ولي بقول سحن ومروكيا ألجيريا مركل الضها مركل جانجسك مركل الله دتك برعد عربت مركل الله قاصة ودم هذا قلبات كنول ومروكيا ألجيريا ولا وضع ودن وتوجو تكمل مركي قلنا ولا بارا
qof Moroccan hadduu dukaan galo waa la baaraa markuu soo baxayo qof Algerian hadduu dukaan galo waa la baaraa sidaas oo kale markuu soo baxayo maxaa yeelay waa tuuga dukaanka way galayaan wixii yaalo dhan ay soo qaadanayaan soo xagaratay ma qof Moroccan shaati maba gataba mara ma gato dukaanka uu tagaa iska soo xirtaa iska soo baxaa tuuga hadaa maqashid iyo xaaraan waa dadkaas ayadana marka meeshii ka bilowdaa meeshii ugu xumayda halkaas ka bilowday Moroccan jooga Morocco maalinka ugu horeysay Morocco maalinka labaad yaa lama aamini karo dad la aamini kara ma dad inta la aamini kara ma waa dad Mooriyaana haddana adiga ay ku neceb yihiin kaga si daran war dadka cadaanka ah xitaa afka gacmaha saartay markay tagaan dadkaas tuugnimadooda adoo Soomaaliya hadaa meesha tagtay yaa cunuga markuu taksiga wada xitaa uma jawaabayo iyada kaliya hadlaysa taksiga soo kiristay dad kale jidka ka sii qaadaya oo sii aruurinaya oo sii kaxaynaya dabcan waxaan isleeyahay inay la heshiisay meesha dhaqan ka jira haday tahay taksigu inuu dad iska sii marmar dhaqan ka jira haday tahay marka hore qaadanaysay ahayd aniga umbaad qaadaysa cid kale maqaas inay kula heshiis haday dhaqan meesha ka jira ay tahay taksigu inuu sida baski kale u shaqeeyo dad sii qaad haday dhaqankaas ka jiro laakiin muhiimadda waxay tahay maalin kasta waxa soo baxay wixii aan sheegaynay baad arkaysaa waxaan sameynaa maahan waa waxaan hadda arkno oo waxaad aragtaan maalin kasta waad arki doontaan dadka Soomaaliyeed oo la jijiidayo oo dadkaas ay jijiidayaan haday tagaan meelaha ay ku nool yihiin iyo hadii ay taginba aan sii fiirino wax yar fiidiyowga walaasheen Yo, he was just fighting with me right now, making me cry in the middle of the street. The worst taxi in my entire life. The worst. I ordered cream, and he's taking people, and I'm like, bro, I'm late. I need to get the hell out of here. yaa aad ayaan uga xumahay gabadha walaasheen waxa gaaray ninkaasuna anaba ku sheegay uu si xun buu la dhaqmay wuu tumay wuu garaacay wuu jukeeyay wuu caayay yaa war ayagoo wadankooda ka soo maqan yaa laga harsan laayay oo laga hoyan laayay ayagoo wadamadooda ka soo maqan maxaad u maleynay mid gurigiisa jooga Soomaalidu waxay tiraahdaa mukulaal milinkeedii joogta miciyaal baa xilada kuwii ka soo tagay wadankaaba aan ka yaabanahay mararka qaarkood waradoo wadankoodii ugu tagay oo la kulantay taas waa arrin kale soo marka waxa leenahay dadka Soomaaliyeed ay ilaaliyaan iska daaya dadka Soomaaliyeed oo jiljilaa iska daaya maaragtay waa inaad serious ahaataan markasta ahaada serious yaan laynku maaragtay qaraaban yaan la idin dirin yaan la bahdilin iska dhiga dad iska daaya waxaan qalbiga kaga buuxa walaala iyo saansaan iska daaya meeshan waxaas walaalo kama shaqeeyaan waa u jeedaan gabdhihiina sida loo galayo soo wax garateen ma marka war Soomaalidu waxay tiraahdaa uhur wax la lahaa jira haddii dadku ay kugu xumaadaan dad badan jira adduunka wanaagsan hadda gabadhaas haday wareegi lahayd wadamada cadaanka haday wareegi lahayd kuma dhaceen waxaan danteeda iska wadan isku soo qaraabeen hadda wadan waxa ka yimaada America ka yimaada dhibaato kuma haysan yaa marka anigu ahaanteeda waxa carab aan ku haysta maaha carabto dhan carabna nacbahay laakiin waxaan nacbahay sida dadka loola dhaqmayo Soomaalida sida loola dhaqmayo nacba sida loola dhaqmayaan bandidiya mogi ani carab raadsada gardareysta ilmili laakiin sida loola dhaqmayaan ayaa si qalad ah waa inaan sidaas ay loola dhaqmayaan aan iska ilaalino weysaa wax sheekadeeda hadda ma fahanti inaan iska ilaalino hadda dad saaxiib la tahay iska ilaali isku day inaad hawlahaaga private ka dhigatid aadan wax badan aysan dhex marin maxaa yeelay markasta oo la sii saaxiibtid oo la sii socotid xumaatinkii baa sii badanaysa isnaciya sii badanay ummadahaas kale ismana nacaysaan xumaatinku ma sii badanayo ayaga laakiin xumaatinkii wax kasta
iska ilaaliya marka iska ilaaliya ya kuwiina hadda la noolna waxaan leenahay ilaahay meel kale aad ku noolaataa in siiyo war khayr baan iska ognaa daanka la soo gaartay halkaan bulshadan ku dhiirigelinaa subscribe sa YouTube channel-kayga intaan muuqaalkan muuqaal lamid ah kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo